ayadoo war lahayn indhaha tusi qubata afarta laga saaraa boqolkiiba boqol. shiikhii yiri socdaal weershe xuux oo maxkamad looga wacay fanaan socdaal oo kiis culus ku eedeeyay Sheekh Shantaay una gudbiyay maxkamadda. Shantaay oo weerarkii uu socdaal ku qaaday loo haysto. sheer gareeya warbixintani aan xogtan ku soo gudbin doono ee aad ka daawanaysaan Somali Social TV lana wadaaga saaxiibadiina oo follow gareeya page-keena Somali Social TV adinkoon iloobin inaad subscribe gareysaan YouTube-keena Somali Social TV. waa tahay aan ku bilaabe waxaa aad u sii xoogeystay dagaalka iyo weerarka hawada ee u dhaxeeya Sheekh Shantaay iyo fanaanka la yiraahdo Socdaal, waxaana hadda xaaladdu ay gaartay in maxkamad leesku dacweeyo. Sheekh Shantaay ayaa 2 maalin ka hor yiri Socdaal weershe xuux, kaasi oo dhiiga ku kicisay fanaanka falaadka badan ee Socdaal. hadda maalinta Sabtida ayaa laga yaabaa in Sheekh Shantaay uu tago maxkamadda si wax looga weydiiyo kiiskani. Shantaay oo noqday shiikhii ugu horeeyay oo ka soo weerara dadka masaajidka, weliba aad ugu foorara dhalinyarada caanka ka ah social media, wuxuuba ugu daran yahay kuwa niikiya iyo kuwa baashaalaba iyagoo istiimaya. Sheekh Shantaay ayaa la gaban ereyada qaar ee afkiisa ka soo baxa, kaas oo lagu weeraro dadka, oo waxaana khalad ah in masaajid laga yiraahdo ereyada qaar ee ka soo baxa afkiisa, taas oo ceeb ku ah dadka qaar in ay ku dhahaan banaanka masaajidka. fanaan Socdaal ayaa la xasuustaa inuu bilooyin ka hor uu soo qaaday hees lagu weeraray shiikhani la yiraahdo Sheekh Shantaay, isagoo shaki ku geliyay shiikhnimadiisa. wadaadkani garka weyn ee masaajidka ku weerara dhalinyarada Soomaaliyeed, heestaasi oo ka mid ahayd ereyada Sheekh Shantaay Sheekh Miya, waa hees cajiib ah oo soo jiidatay intii dad u wacayay Sheekh Shantaay, kuwaasi oo Socdaal necbanaa laakiin heestaasi u qaatay in ay dhageystaan si ay ugu weeraraan Sheekh Shantaay. Sheekh Shantaay oo jawaab soo dhiibay ayaa wuxuu jawaabtiisa ka dhigay in Socdaal uu heesaha u qaado eeyaha, oona waxa uu ku caayay in uu Socdaal yahay weersho, wuxuuna yiri Sheekh Shantaay Socdaal weershe xuux yaa la aaminin. dhanka kale Baabajey oo ka soo qabtay Sheekh Shantaay faar weyn ayaa waxa uu ku sheegay in Sheekh Shantaay hadda ka hor uu Baabajey u dooday oo dadka qaar ay Baabajey ka sheegaan oo ay ku cunsuriyeen abuurista Alle, laakiin Sheekh Shantaay sidaas dhahaya ayaa waxa uu wax ka sheegay abuurista Ilaahay, oo waxa uu yiri Socdaal weershe xuux yaa la aaminin. war sheer gareeya saaxiibayaal oo ku faafiya garuubyada, la wadaaga saaxiibadiina oo like dhaha muuqaalka. haddaba daawade sidee u aragtaa dacwada laga gudbiyay Sheekh Shantaay? ma laga yaabaa Sheekh Shantaay in la xiro Sabtida maadaama looga yeeray maxkamadda? fikirkaada qaybta faalada ama commentiga inoogu reeb. intaan warbixintan teeda kale aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa amaano Allah.